السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأنا عبد الكريم كسر هذا شركة أسكونيكوم. ما أنت وحن جوجنا جامعة أوزين يونيفرسيتي أو كمية جامعة بريفتك دالك تركيا. ما أنت وحن اسكوديا أنتي أود ده إن أنا إدين سوق كوبو جامعة أوزين أو كمية جامعة بريفتك كويا إسطنبول. هراي معهن جامعة أن أشرحني جامعة أوزين أما عاد أنت بدنا نوجا برتين أما سوشيال ميديا نحن نقطه أما يوتيوب كنا نحن نقطه أنت بدنا جامعة صخر صورنا معهن لكن وجامعة أن ربو دمان أرض الرادين يسو جامعة كوالتي له إن أي وحكة أجادان سيبا أرض هيسو أنا لعقت مهمي معهن وح مهمي وإن جامعة أي تهيئته وإن جامعة أي تهي جامعة هدو عن خرشة كهلي كرو جامعة أنا هدو مركي أنا مجا إذا شيء تدكو إعادة سلوينيان هدي تاي أرض هسكو فكرايو فضلا فيديو كان لا دمات كيس داو هدي أنا قداونا سي يوتيوب كا فضلا هاي المامين إن سبسكرايب إنه هذا سيدو كلا اللايك تإنه صارت فيديو كان وهي فكر كاجا هنا قيبت كومنتيجا هذه إنه جوسو قدس حتى بقى وقت دير أيان فيديو كان وصعدونا وقت أنا ذيك خساري مرة أم بلاو waxaan ku bilaabi doonaa jaamacadda sharaxaadeeda qaybta student centerka jaamacaddu qiimo fara badan ay ka kooban tahay hadda waxa aan joognaa qaybta loo yaqaan meedaanka ama centerka macnaha jaamacadda ayaan joognaa oo ah meesha inta badan ay ardadu iskugu yimaadaan waa halkan waxa ka muuqdo student centerka ama xarunta ardada lagu diiwaan geliyo sidoo kale facility fara badan ay ku yaalaan sidoo kale dhankaas waxa ka muuqdo laba dhismo oo ayagana ah dhismaha engineeringka iyo dhismaha architectureka gadaasheenana waxaa dhismahan loogada jaamacadda uu ku yaalana waa dhismaha kulida loo yaqaano applied science-ka ama ardada dhigato gastronomiga ama ardada dhigato pilotka ardada dhigato hotel management-ga meesha ay casharada ku qaataan dhammaantood waa wada arki doonaa laakiin waxaan rabaa marka hore inaan ka bilaawno qaybta student centerka oo ka kooban 4 dabaq oo hoos iyo kor ah meeshan student centerka ah haddii aan faahfaahin yar idinka siiyo waxaa gudaheeda ku yaalo maktabadda jaamacadda oo runtii ay laftirkeedu ilaa 4 dabaq ka kooban ayaa gudaha jaamacadda meesha ku taalo waxaa ku yaalo maqaayadan aad u jeedaan ee nuuro qaybteeda kale ayaa ayadana gudaha ku taalo sidoo kale waxaa ku yaalo supermarket waxaa ku yaalo storeka jaamacadda waxaa ku yaalo halka ay ardadu cuntada ka cunaan ama maqaayada ardada ay cuntada ka cunaan ayaa ku taalo dhammaantoodna waa wada arki doonaa hal aan ku bilaabno qaybta stationeryga oo ardadu ay qalimaanta iyo buugaagta ay ka gataan markii ay jaamacadda joogaan dabcan jaamacaddu saan hore usoo sheegay waa jaamacad quality leh waa jaamacad qiimaheeda jaamacadahan oo qaali yahay waana ka hadli doonaa laakiin stationeryga jaamacadda runtii marka loo fiirsho banaanka xoga yar waa qaali taasna waa inaan sheego waayo ardada aan wareysnay ee jaamacaddan dhigato waxay noo sheegeen in stationerygu oo banaanka ka qaalisan yahay marka loo fiirsho saas awgeed haddii aad awoodo oo aysan degdeg ahayn waxaan kugula talin lahayn buuggaaga iyo qalinkaaga inaad banaanka kasoo gadato haddii aad awoodo haddii laakiin ay degdeg tahay dabcan intana waa ka gadan kartaa saan hore usoo sheegayna qiimahoodu xogaa yar banaanka waa ka qaalisaya wixii daabacaada iyo wax kasta oo baatana stationeryga waa keeli kartaa haddaba aan fiirino dhanka libraryga jaamacadda ama maktabadda jaamacadda oo ayadana ka kooban ilaa 4 dabaq ay ayadana ka kooban tahay laakiin 3 dabaq ayaa inta badan la isticmaalaa laakiin ilaa 4 dabaq ay ka kooban tahay maktabadda jaamacadda waxa ay leedahay oo hadda gudaheeda ku yaalo yaala macnaha oo la taaban karo 50,000 oo kitaab iyo sidoo kale 409,000 oo kitaabada digitalka ah meesha gudaheeda maktabadda gudaheeda ayay yaalaan bal hal mar aan aadno kadib ayaa idin sharaxa halkan waa maktabadda jaamacadda waana maktabadda ugu weyn ee jaamacaddu leedahay waxayna ku taallaa dhismaha student centerka ardayga rabo maktabadda inuu wax ku akhristo maadaama jaamacadda arday fara badanna ay joogaan arday qaarna ay jecel yihiin markii ay maktabadda yimaadaan inay iska fariistaan buugaagtooda alaabtooda ay dhigtaan jaamacaddu waxa ay samaysay fasal kasta waxay u samaysay meel u gaara oo ardadu ay wax ku akhrisan karaan iyo sidoo kale waxaa la sameeyey qolal ee ardadu wax ku akhrisan karaan haddii u baahdaan si loo yareeyo ardada waqtiga inta ku luminayo haddii aad rabto maktabadda inaad wax ku akhrisato waa in aad marka hore reservation ama ballan aad ka qabsataa la ogaadaa xilliga aad rabto inaad soo gasho iyo xilliga aad rabto inaad ka baxdo si looga hortago ardada iska fariisanayso ee maanta oo dhan waqtiga ku luminayso maktabadda halkan
areadan aad hadda ujeedaan waa area ay inta badan ardaydu ku kulmaan mararka qaarna seminaaro ayaa lagu sameeyaa halkan oo shirkado ayaa banaanka ka yimaado siiba bisha 11aad seminaaradaas inta ayaa ardayda la isku wada wacaa dhammaantood macallimiinta qaar ayaa yimaado halkan ay shirkadaha banaanka ka yimidna ee ardayda kula kulmaan runtii seminaaro fara badan ayaa sanadkii inta lagu qabtaa oo ardaydu ka faa'iideystaan haddaba hoos hadaan sii aadno hoos waxaa ku yaalo saan hore u sheegay maqaayadda jaamacadda aan isla sii eegno halkan waa maqaayadda ay ardaydu wax ka cunaan dabcan maqaayadan ma ahan maqaayad lacag la'aan ah waa maqaayad lacag ah laakiin marka loo fiirsho sicir bararka wadanka ka jira iyo marka loo fiirsho banaanka lacagta cuntada looga cuno dabcan maqaayadan waa ay ka jaban tahay ardaduna afar nooc ilaa 3 nooc oo cunto ay maqaayadda ka cuni karaan maqaayadda sidaad u jeedaan waa ay weyn tahay arday badan ayaana hal mar wax ku cuni karto haddii dhankana waa dhanka cuntada laga qaato haddii aan fiirino qiimaha wax lagu cuno jaamacadda qofkii raba 3 nooc oo cunto waa 23 liiro 4 nooc oo cunto waa 24 liiro 5 liiro cuntaana 5 nooc oo cuntaana waa 25 liiro yani waa $1 bar runtii lacag ma ahan laakiin waxa ugu muhiimsan meeshan waxa waaye in jaamacaddu ay runtii cuntooyin kala duwan oo ilaa 4 nooc ah ay ardayda ku siinayso 1.5 taasna waxay tahay in ardaydu ay maskaxda ku haystaan halkan waa dabaqa saddexaad dhismahan student centerka halkan waxaa ku yaalo xafiisyo sida xafiiska loogu talagalay in ardayda ajaanibta ka caawiyo mustaqbalka u diyaariyo yani ka caawiyo maahan mustaqbalka u diyaariyo tusaale ahaan oo kale hadii CV-gaaga arto in lagu diyaariyo halkan ay ma kartaa hadii aad u baahan tahay ID-yahaaga halkan ay ma kartay ardayda mustaqbalkooda in la dhiso oo loogu magacaabo Ozo X asagana wax kadib ayaan booqan doonaa laakiin halkan hadaan wax ku soo koobo xafiis qaar adiga ilaa 4 xafiis camal ayaa halkan ku taalo xafiiska ugu muhiimsan oo aniga aad ii soo jiitana waa xafiiska ardayda ka caawiyo in CV-gooda la diyaariyo haday shaqo u baahan yihiin shaqo la raadiyo hadii fikir ay haystaan fikirkooda lagu caawiyo dabcan jaamacadaha kale jaamacado yar oo leh way jiraan laakiin jaamacadan arinta meel kale ay gaarsiisay waana sababta ay mar walba oo ay jaamacadu iskugu faanayso inay tahay jaamacadda ugu wanaagsan Turkiga ee ardayda shaqo u hesho saasaaweed ardayga u baahan xafiisadan ayuu imaan karaa sidoo kale waxaa jira xafiisyo waxbarasho waxaa jira xafiisyo psychology oo qofka psychology ahaan xataa hadii problem uu haysto laga caawiyo qaab lacag la'aan ayaa halkan ku yaalo hadda intaasna waxaan rabaa inaan ku soo koobo dhanka iyo dhismahanba jaamacadda Uzeyn waxa la aasaasay 2007 ayaa la aasaasay waana jaamacad bareefada waxayna Istanbul uga taalaa dhanka Asia siiba xaafadda Chekmakoy geeskeeda waliba yani Chekmakoy xataa waa gees saasaaweed jaamacadda xogaa yar marka loo fiirsho magaalada jaamacad ka dheer ayaa lagu tilmaami karaa taasina waxay keentay in jaamacaddu ay samayso deegaano ardaydu ay degaan si aysan ardaydu ugu baahan in ay jaamacadda ka baxaan oo ay banaankeeda aadaan laakiin ardaygii dhaho waxaan degaa magaalada dabcan jaamacadda waa uu imaan karaa waayo jaamacaddu waxay leedahay service kala duwan oo ka yimaado dhankan Asia oo Tunusaade ka soo qaadayo ilaa 20 daqiiqo ku keenayo jaamacadda hadii aad gaar leedahay kaba si wanaagsan 30 daqiiqo ayaad jaamacadda ku imaan kartaa waa hadii aad degan tahay dhanka Asia laakiin xaqiiqada hadii aan sheego jaamacadda inta badan waxyaabaha laga cabaado waxa kamida xagga transportationka kuma wanaagsana waayo gees ay magaalada uga taala gawaari fara badan oo meeshan yimaada ma jiraan inta badan ama gaarigaaga ku imaan kartaa ama serviceka jaamacadda ayaad ku imaan kartaa inta badan serviceka wuxuu ka soo baxaa Kadikoy Atashahiir Altunuzade Bendik Tuzla meelahaas ayuu inta badan ka soo baxaa laakiin marka aad fiiriso waxyaabaha kale jaamacadda lagu eedeeyo waxa kamida in aysan dhanka Europe ardada ka soo qaadin oo inta badan ay ka soo qaadaan qaybta Asia saas awgeed hadii aad leedahay waxaan rabaa anoo gurigeyga degan jaamacadda inaan dhigto ha hilmaamin in aad soo raacdo serviceka jaamacadda liiska xilliga oo jaamacaddu servicekeedu oo ka kacana waxaad ka heli kartaa website-ka ama hadii aad xafiiskeena ku xareeyaan annaga ayaa ku siin doono kulana wadaagi doono sidoo kale jaamacaddu saan hore u soo sheegay jaamacaddu waa jaamacad quality leh ma ahan jaamacadaha inta badan ardada ajaanibta ah iyo ardada Turkida ay dhigtaan ma ahan waayo Turkida ay qaataana
quality ay ku qaataan kunka arday ilaa iyo 5,000 oo arday ugu sareysa wadanka ay inta badan aqbalaan jaamacadan waxay la mid yihiin jaamacadda Coach iyo jaamacadda Sabanji saddexdan jaamacadood waa isku mid marka la fiirinayo xagga qaadashada ardayda ajaanibta iyo ardayda Turkida waayo waa jaamacad rabto in quality-geeda ay mar walba kor u qaado ma rabto arday fara badan tusaale ahaan ardayda hadda jaamacadda dhigato waa 8,000 oo arday halka jaamacadaha qaar marka fiiriso oo anaga hore aan u booqanay ee 40,000 30,000 ay yihiin jaamacadda waa 8,000 oo kaliya waxaana ajaanibka ah 1,200 oo arday oo ajaanib ah ayaa jaamacadan dhigto oo ka kala yimid 75 wadan sidoo kale xagga quality-ga marka laga hadlayo Times waxa ay shaacisay 2021 jaamacadan inay tahay jaamacadda lixaad ee ugu fiican dalka Turkiga marka laga hadlayo dhanka jaamacadaha private-ka sidoo kale marka laga hadlayo jaamacadaha guudna waxa ay soo gashay 12 jaamacadood ee wadanka ugu fiican ayay sidoo kale soo gashay sidoo kale marka la fiirsho U Multi Rank website-ka la yiraahdo oo ay soo xiganayso shabakada wararka Turkiga ee Anadolu Agency 2021 jaamacadda Uzayn waxa ay noqotay jaamacadaha Yurub jaamacadda ugu fiican xagga quality-ga markii la fiirshay 97 jaamacadood oo website-kaas oo analyze ku sameeyay kadib jaamacadda koobaad ayay noqotay sidoo kale jaamacaddu waxay kaalinta koobaad ka gashay xagga shaqo helista waxaan horey inta badan u sheegay in ardayga jaamacaddan Uzayn ka baxo ama Turki ha noqdo ama ajaanib ha noqdo oo horey shaqo ka helo taasna ay sabab u tahay inay leedahay xafiisyo ardayda ka caawiyo inay shaqo helaan inay leedahay center loo diyaariyay ardayda shaqada rabto inay bari shaqo abuurato rabto inay bari shaqo raadsato iyo arday oo hadafkiisu yahay inuu bari shaqaysto inay ka caawiyaan CV-giisa iyo dhammaan project-yadiisa inay sidoo kale ka caawiyaan taasna waxay kor u qaaday markasta jaamacadda ay ku faantaa inay tahay in 4 sano la soo dhaafay 2 jeer isku xigto ay gashay kaalinta koobaad jaamacadda ardaydeedu ay degdeg ku helaan shaqada sidoo kale marka la fiirsho impact-ga ama marka la fiirsho saameynta ay sameysay jaamacadduna 2019ka 2020 iyo 2021 dalka Turkiga waxay gashay kaalinta koobaad oo ah jaamacadda ugu saameynta badan wadanka Turkiga marka la fiirsho xagga rankinga taas ayay noqotay sidoo kale yaani meel kasta waxaad moodaa jaamacaddu inay kaalinta koobaad ku jirto jaamacaddu waxay leedahay kuliyado aysan horay u dhigin jaamacadaha intooda badan aysan haynin sida kuliyada hotel management oo kale sidoo kale kuliyada pilotka iyo kuliyada aviationka jaamacadihii ugu horeeyay ayay ahayd siiba hadda waxa ay tusi doonaa 2 kuliyadood oo jaamacaddu ay master ku tahay oo looga dambeeyo oo runtii aan faan iga ahayn adinkana markaad indhiina ku aragtaan aad iqri doontaan oo ah kuliyada hotel managementiga iyo kuliyada gastronomiga labada kuliyadoodba waa 2 kuliyadood oo runtii oo ardayda Turkiga ee jaamacadan dhigto ama ardayda Turkiga ee kuliyadahan ka soo baxay ay yihiin jaamacadda koobaad oo ay doortaan marka ay xareysanayaan ama markay darajo fiican keenaan ay hore ka galaan ay tahay dabcan labada kuliyadoodba darajooyin waaweyn ayaa ku xiran marka waana idin soo tusi doonaa dhammaan kuliyadaha engineeringa architecture-ka sidoo kale kuliyadaha hadda aan ka soo hadlay pilotka iyo kuwa kale la xiriiro sidoo kale pilotka haddii ardaygu uu rabo inuu pilot dhigto waa jaamacadda labaad saan u malaynayo waa jaamacadda labaad ee Turkiga ugu dalabka badan ee ardayda ugu darajada sareyso ee sanad kasta dalbato marka meel kasta jaamacadda ama waa 1 ama waa 2 ama waa 3 ama waa 4 yaani meel kasta kaalmaha ugu horeyso ayay jaamacaddu uga jirtaa faculty-gan hadda aan booqanayno waa faculty-ga kuliyada business administration-ka ya kuliyadaha business administration-ka kuliyada gastronomiga kuliyada aviation management-ga kuliyada hotel management-ga iyo kuliyada kale ardadu ay ku bartaan ama casharada ay ku qaataan saas awgeed bal aan eegno halka ay ardadu wax ku bartaan iyo sida ay tahay halkan ardayda waa fasallo ay ardadu wax ku dhigtaan sidoo kale qolalkan oo kale hadda daa fiiriso qolalkan waa qolalka ardaydu ay wax ku akhristaan tusaale ahaan oo kale haddii aad leedahay aniga library-ga inaan aado ma rabo jaamacaddu waxay leedahay qolal fara badan oo dabaq kasta ama faculty kasta loo sameeyey oo ardadu inta reservation samaystaan aad sidoo kale qolkan wax ku akhrisan karto xilligii adiga aad rabto intii adiga aad rabto qolkan ayaa kaligaa wax ku akhrisan kartaa taasna ardayga concentrationkiisa rabo inuu siiyo wax uu akhrinayo waa meel runtii aad iyo aad u anfacayso saan hore usoo sheegay dhismahan waxaa lagu dhigtaa
keliya ma ahan kuliyadaha businesska iyo sidoo kale kuliyadaha gastronomiga, aviationka iyo pilotka ayaa lagu dhigtaa. Halkan waa qayb ka mid ah diyaaradda ay ardaydu ay tijaabada ku sameeyaan markii la barayo pilotka. dabcan ayadoo ka weyna jaamacadda waa ay leedahay, laakiin qaybtan waa qayb yar oo iska tusaale ah. marka ardayga halkan ayaa waxaa lagu siiyaa tababarkiisa, waa ardada pilotka ah iyo ardada aviation managementiga ah. hadda waxaan rabaa inaan idin soo tuso halka ardayda dhiganayso kuliyadda gastronomiga iyo kuliyadda hotel managementiga ay wax ku qaataan. aniga waxaan ka shaqeeyaa waxbarashada, wax badanna waxaan ku soo jiray tacliinta iyo xaraynta jaamacadaha. ilaa iyo haddeer ardayda Soomaaliya ka timid, yani dalkeena ka timid, ama ha ahaadaan kuwa qurba ku soo koray ama ha ahaadaan kuwa dalkii ka yimid, runtii aad iyo aad ayay u yar tahay ardaydana weydiinaya labadan kuliyad ee aan rabo maanta inaan idin tuso. يعني أرض الصومالية واحد مدائني آدي إيسا وحوقة فانسانين وما حي جاسترونومي، يعني شيف محوية يا شيف لدها أي نوع كيف كرايان أنا جيك إن أنقل مربو أنا إن أنت كاريا مربو أنا إن كوكر اللي لها مربو، يعني وحوم لا ينوح لبهد لي وأن شرف لهين وأن هذا قيمة كفرين. ماشي أدونك waxa lagu tartamayo ay tahay in xirfad adiga aad yeelato oo mustaqbalkaada aad noqoto qof lugiisa isku taagayo. adduunkana waxa cunto kariyo haween waxa ka badan waa ragga. tusaale ahaan program waxaa jiro Turkiga ah oo la yiraahdo Master Chef, inaad daawateen in kala ma ogi, laakiin programkaas haddii aad daawato halqada habeenkii soo galayso in 20 wiil iyo 4 gabdhood ay ku jiraan. taas micnaheedu ma ahan in gabdhuhu ay diideen in programka ka qayb galaan, ma ahan, laakiin waxay ku tusay in wiilashu ay ka badan yihiin gabdhaha. sababta maadada chefku waa maado adiga aad bari hotelkaaga samaysan kartid, maqaayadaada samaysan kartid. adiga aad tahay chef, adiga ma tihid shaqaale, waxaad tahay chef. chef waa maxay? qof asaga menu diyaarsada waa. yani marka waa maado mustaqbal leh. wadanka Turkiga waa inaad darajo gasho si maadadaas aad u dhigato, ma ahan maado fudud. saas awgeed hotel management oo kale annaga hotel management ma barano haddii aan Soomaali nahay. ilaa hadda hal arday weydiiya ma jiro. ardayda ajaanibta wayna weydiiyaan, maaliyaanka wayna weydiiyaan, Nigerianka wayna weydiiyaan, laakiin Soomaali ku dhahayo aniga waxaan rabaa hotel management ma jiro. hadda jaamacad kale waxaa jirta jaamacadan la mid ah oo maadada hotel management-ga dhigto oo ardayga u ballan qaadayso 100% inay shaqo siinayso haddii uu ayada ka barto. yani kuliyadaha qaar ardayga shaqo ayaa xataa loo soo bandhiga, qafraba male. marka intaasna ha iga ahaato fadlan codsi. maadooyinka annaga aan barano waa inaan ka fikirno inaysan noqon maadooyin la isla yaqaano ee maadooyin mustaqbal leh aan barano. marka hadda gastronomiga iyo hotel managementiga saan sheegay, jaamacaddan waxa ay ku leedahay quality, waxayna kamid tahay jaamacadihii ugu horeeyay ee dalka Turkiga ka bilaabay. bal aan eegno maxaa ka dhigay Ozeyn in lacag intaas la eg lagu dhigto kuliyadda aviationka iyo kuliyadda gastronomiga iyo sidoo kale kuliyadda hotel managementiga. halkan waa reception hotel oo loo sameeyay ardayda dhigato kuliyadda hotel managementiga inay ku qaataan practical. sidoo kale dhankan waxaa ku yaalo hoteelo runtii aan waxba ka duwanayn hoteelada caadiga ah. qolal waxaa la sameeyay sida hoteelada caadiga camal ah oo kaar lagu galaayo, oo sida hoteelada caadiga ah loo nadiifinayo, oo sida hoteelada caadiga ah dadka loola dhaqmayana halkan ay ku yaalaan oo loogu talagalay ardaydu inay tijaabo ku qaataan inta ay wax baranayaan. yani kaliya macalinka duu kaaga sheekeeyo oo aadan tijaabo aadan qaadan, problem ayaa la kulmi kartaa. halkaanna waa qaybta aan hadayta soo sheegay ee hotel managementiga qayb ka mid ah waaye oo hoteeladan yani qolalkan waxaa loo diyaariyay ardada inay tijaabo ku sameeyaan ayadana loo diyaariyay inta aysan maadada ka qalin jabin. halkan hadda aan joogno waa halka gastronomiga waaye. ardayda ay ku bartaan cunto kariska iyo artiska cunto kariska halkan ay ardada ku bartaan. dabcan meelaha qaar in naloo fasixi waayo ayaa laga yaabaa, laakiin halkan waa jikadii ay ardadu practicada ku sameynayeen. dabcan hadda dhismaha nagu xigo 10 ayaa ka socda, inaad arki kartid in kala ma ogiye. dhismahanoo dhan qaybta hoose saan sheegay 2 ayaa loo kala saaray, qaybta gastronomiga iyo qaybta hotel managementiga. sidoo kale halkan waxaa ku yaalo maqaayad ardaydu siiba ardayda gastronomiga dhiganayso ay practical ku sameyn karaan. sida maqaayad caadi camal ayaa ardaydu waxay ka yihiin chef ayay ka yihiin, kadibna maqaayadaas dad caadi ayaa yimaado cunto ayay ka cunaan. bal ku fikir jaamacad leh ardayda gastronomiga meel ay cuntada
ku tijaabi karaan cuntadoodana ay gadi karaan inta aysan jaamacadda ka qalin jebin. taasna runtii waa wax aad iyo aad farxad u gelinayo ardayda rabto inay barato kuliyadda gastronomiga. sidoo kale jaamacaddan hal shay ayaan rabaa inaan sheego. barnaamijka aan hadayt hore ugu soo dhawaajiyey ee loo yaqaano master chef, jaamacadda ugu badan ee ardayda ay ka aadaana waa jaamacaddan, maadaama jaamacaddan quality-geeda xagga cunto kariska aysan la mid ahayn jaamacadaha kale. hadda waxaan joognaa markaa qaybta sport centerka ee jaamacadda Uzayn. dhankan hadda u jeediin waa qaybta maqaayadda sport centerka jaamacadda ay leedahay. dhankan kalena waxaa idinkaga muuqdo jaamacadda qayb ayada ay leedahay oo lagu tagalay caafimaadka. ma ahan keliya dadka isboortka sameeya caafimaadkeeda, keliyana qof kastoo jaamacadda joogo oo ama jirrado ama wax u baahdo dhankan kalena wuu imaan karaa. gargaarka degdega ah ayaa halkan loogu sameynaa. gadaasheen hadda waxaa yaallo oo sugaayo aad u jeediin ambulance-ka inuu hadda naga dambeeyo ayaa u jeediin, oo ah in qofku wixii degdeg ah isla markii loola cararo magaalada isbitaaladeeda hore laga geeyo. halkan aan hadda joogno waa qaybta sport centerka jaamacadda. dhismahan wuxuu ka kooban yahay ilaa iyo 3 dhismo ama 3 qaybood ayuu ka kooban yahay. dhammaantoodna waxaa loogu talagalay ama waxaa ku wada yaallo xarumo ardadu ay ku samayn karaan sportka. hadday ahaan lahayd gym, hadday ahaan lahayd qaybta dabaasha oo hadda idin tusi doono, hadday ahaan lahayd qaybta ay tenniska gacanta ama table tenniska ay ku ciyaari lahaayeen, hadday ahaan lahayd bilardo, hadday ahaan lahayd santranch ama chess qaba sida u yaqaano. dhammaantood yani wixii markaas kugu soo dhici karo dhan halkan ayay jaamacaddu ardada ugu talagashay. dhismahan ayayna u samaysay. dhismahan waxaa ka faa'iideysan karo arday kasta oo jaamacadda dhigto. inta badanna waxaa loogu talagalay maadaama 1500 arday ay deegaanka ardada ama dormitoryga jaamacadda ay degan yihiin, in xilliga aysan xiisadaha lahayn sida galbihii oo kale inay halkan yimaadaan oo ay ka faa'iideystaan ayaa loogu talagalay, weliba si lacag la'aan ah. jaamacaddu ardada kama qaado wax lacaga, ama ahaw arday banaanka degan oo magaalada degan, ama ahaw arday dormitoryga jaamacadda degan. xilligii aad halkan timaado waa aad ka faa'iideysan kartaa dhismahan iyo waa ka faa'iideysan kartaa dhammaan facility-gan ay jaamacaddu kuugu talagashay. inta badanna ardayda jaamacadda siiba kuwa sportka sameeyo iyo kuwa markaas xiisadooda ka soo baxay ee rabo inay nastaan ayaa loogu talagalay, iyo sidoo kale arday kasta oo isku diyaarinayo Olympiga. dabcan halkaana jaamacaddu ay ku soo dhaweynay sida aan hore u sheegay. jaamacaddan dhammaan facility-gan ay samaysay iyo dhismahan ay dhistay iyo waxaan oo dhan ardada jaamacaddooda waa u lacag la'aan. haddaba intaas haddii aan ku soo koobno qaybta sportka, waxaan hadda u sii gudbaynaa dhismayaasha kale ee jaamacadda inaan idiin sharaxno. saas awgeed aan hore u socono. halkan waa dhismaha kuliyadda architecture-ka iyo sidoo kale interior architecture-ka iyo industrial design-ka. halkan haddii aan hadda fiirino waa hoolka ama qaybta ay ardadu ku sameeyaan practicada siiba ardada dhiganayso 3 kuliyada aan soo sheegay. architecture-ka oo ah kuliyadda design-ka dibadda, iyo interior architecture-ka oo ah design-ka gudaha, iyo kuliyadda caanka ah industrial product design oo ah kuliyadda loogu talagalay shirkadaha ama warshadaha wax soo saaro dadka u design gareeyo baakadaha iyo waxa ay sameynayaan u design gareeyo. dabcan waa kuliyad muhiima, kuliyad dalka Turkiga jaamacadaha intooda badan ay dhigaan oo ah warshadaha waxa ay soo sameynayaan ama ay rabaan inay sameeyaan dadka u design gareeyo productigooda. waa kuliyadda lagu barto. ilaa hadda waxaan soo aragnay dhismayaal kala duwan oo jaamacaddu ay leedahay. dabcan jaamacaddu waa ay weyn tahay, 350 mitir square ayay ku fadhisaa. ma soo wada koobi karno, laakiin waan daalnay. bal wax yar aan fariisto kadibna saas aan idinku sii sharxo jaamacadda xogteeda kale intii aan ka gaari karo. jaamacadda waxaan isku dayay inaan idin soo koobo, laakiin 2 su'aal oo muhiim ah wali idinkaga ma jawaabin. jaamacaddu imise kuliyad ayay leedahay, qiimaheeduna waa imisa, maxaa se requirement loo baahan yahay. jaamacaddu horta waxay ka kooban tahay 6 kuliyadood oo sida kuliyadda engineering-ka, kuliyadda architecture-ka, kuliyadda business-ka, kuliyadda applied science-ka iyo kuliyado kale ay hadda jaamacaddu ay haysaa. laakiin
haddii aan hal u soo qaato maadooyinka ay ahaayaan waxaa ka mid ah computer science-ka, waxaa ka mid ah industrial engineering-ka, waxaa ka mid ah electric-ga, waxaa ka mid ah business administration-ka, international trade and finance, waxaa ka mid ah sidoo kale aviation management, waxaa ka mid ah pilot, iyo kulliyado kale sida hotel management, gastronomy iyo kulliyado kale ay jaamacaddu haysaa. sidoo kale jaamacadda hal maado waxay haysaa jaamacadaha Turkiga aysan haynin kulliyadaas oo ah entrepreneurship, oo ah kulliyad runtii ardada u diyaarinayso in qof kasta uu noqdo in hadhow uu shaqo abuuran karo. hore waxaan u soo sheegnay in jaamacaddu ay leedahay xafiiska loogu talagalay inuu ardada ka caawiyo inay shaqo helaan, in CV-gooda lala diyaariyo iyo waxyaabo noocaasa. saas awgeed maado gaarana jaamacaddu waa ay leedahay oo entrepreneurship-ka aad ku baran karto. haddii aad u baahan tahay inaad mustaqbalka noqoto nin shaqadiisa booska ah, dabcan waa kulliyad aad baran karto. sidoo kale jaamacadda boqolkiiba boqol waxaa lagu dhigtaa luuqadda Ingiliishka. qiimaheeda haddii aan wax yar ka taabto, jaamacaddu waa jaamacad qaaliya. qiimaheeda $12,000 waaye sanadkii qiimaha caadiyan oo listing price-ka jaamacadda lagu dhigto. laakiin ardada shirkadeena ka soo xareysto ilaa iyo 7,000 ilaa iyo 8,400 inta u dhaxayso qiimo dhimis ah ayay ka faa'iideysan karaan oo haddii ay shirkadeena ka soo xareystaan. dabcan haddii aad SAT haysato ama darajadaadu ay sareyso, dabcan markaas qiimo dhimis gaar ah waa aan kula raadi karnaa. laakiin haddeertaan qiimaha caadiga ee jaamacadda lagu dhigto waa inta. haddii aan ka hadalno dokumentiga loo baahan yahay, waxba ugama duwana dokumentiga jaamacadaha kale ee loo baahan yahay. waxa ugu muhiimsan ee fiirinayaana waa darajadaada, waa in darajadaadu ay fiicnaato, waayo jaamacaddan ma rabto arday average ah inay aqbasho. si kastoo lacag u leedahay, haddii darajadaadu ay hooseyso inay ku aqbali weyso ayaa laga yaabaa. saas awgeed kow waxay fiirinayaan waa shahaadada, laba waxay fiirinayaan transcriptigaaga iyo sidoo kale baasaboorkaaga iyo sawirka sare inaad haysato. haddii aad intaas noo soo dirto ama aad website-keena ka soo xareysato, annaga ayaa aqbalada kaa caawinayno in aad jaamacadda iska diiwaangelisa kaa caawinayno. sidoo kale haddaan u imaano dhanka deegaanka, hore waxaan u sheegay jaamacaddu inay magaalada ka dheer tahay oo meel gees ah ay ku taalo. saas awgeed ardada su-aasha koobaad is weydiinayaan waxaa waaye jaamacadda gudaheeda deegaan ma leedahay? dabcan jaamacadda gudaheeda deegaan waa leedahay, oo jaamacadda hadda waxaa gudaheeda degan 1,500 arday ka badan oo iskugu jiro ajaanib iyo Turki. marka jaamacaddu waxay leedahay 6 nooc oo dormitory ayay gudaha jaamacadda ku leedahay. dormitory-dan waxay kala leeyihiin nambaro, dormitory 1 2 3 4 5 ilaa iyo 6 ay leeyihiin. dormitory 1 2 3 waa dormitory-yaashii ugu horreeyay ee jaamacaddu ay samaysay. 4 iyo 5 ayaa ka dambeeyey, 6na waa mid ka hadda ugu dambeeyey ee jaamacaddu ay dhamaysay. dabcan way kala qaalisan yihiin siday u kala horreeyeen, iyo ma waxaa rabtaa qol kaliga ah, mase waxaa rabtaa qol 2 qof ah, mase waxaa rabtaa qol 3 qof ah, mase waxaa rabtaa qol 4 qof ah. taasna waxay ku kala duwan tahay lacagta aad bixin doonto. tusaale ahaan sanad dugsiyeedkan 2022-2023 qolka 4 qof lagu dego qiimaha sanadkii taqriiban waa $1,000. sanadkii waa $1,000. dabcan marka la fiirsho 9 bilood ilaa 10 bilood yuurta aad deganaanayso, qolkaagii aad adiga miiskaagii aad leedahay, muxuu ahaa sariirtaadii aad leedahay, meesha alaabta gashanaysa aad leedahay, $1,000 inaad ku deganaato dabcan wax ay tahay malahan ayaan dhihi karaa. taasoo u dhiganto inaad sanad bishii bixinayso lacag $70. dabcan alaabtaadii dharkaagii iyo dhammaan utility-gii ama koronto biyo gaasna midna aadan lacag ku bixinaynin, oo dharkaagina lagu dhaqaayo, muxuu ahaa korontadaadii biyahaadii gaaskaagina ay jaamacaddu bixinayso, oo weliba aad jaamacadda gudaheeda ku nooshahay oo aadan transportation u baahnayn, aadan wax kale u baahnayn. dabcan waxaan leeyahay inaysan lacag qaali ahayn marka magaalada loo fiirsho. sidoo kale haddii jaamacadda deegaankeeda aad degto, faa'iidooyinka ay helayso waxaa ka mid ah in 24 hours jaamacadda gudaheeda aad wax ku akhrisan karto, in haddaa u baahato kubadda koleyga, basketballka, kubadda cagta, jiimka iyo dhammaan facility-ga jaamacadda inaad ka faa'iideysan karto si lacag la'aan ah. taasna dabcan waa faa'iido kale oo ay leedahay jaamacadda gudaheeda in la dego. marka warka waxaan kusoo gabagabayn doonaa jaamacadda Ozain University waa jaamacad quality leh, meel kastoo laga fiirsho waa jaamacad quality leh, laakiin waa jaamacad qaaliya. marka jaamacaddan ma sugayso in ay aqbasho boqolaal arday oo Soomaaliyeed. waxay rabtaa arday quality leh oo aan ka fakaraynin lacagta, ee ka fakarayo mustaqbal iyo jaamacad tayo leh inay wax ku bartaan ayay rabtaa inay soo dhaweyso. intaasna waxaan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo videogii aan ka diyaarinay jaamacadda Ozain University. dabcan iga raali noqdo haddii aanan dhammaan dhinacyada jaamacadda iyo dhammaan koonarada jaamacadda aanan idin tusin, sababtoo ah waqtiga ayaa noo saamixi waayey in jaamacad
saas u weyn aan hal mar hal video ku soo koobno dabcan video kale waa ka samayn doonaa live-na jaamacadda waan ka samayn doonaa marka ha hilmaamin inaad nagala socoto YouTube-keena iyo sidoo kale social media-heena askuni.com oo aad ka faa'iidi doonto xog far badan sidoo kale waxaan rabaa inaan kuu sheego askuni.com waxa ay 100% kugu soo dhaweynaysaa gacmo furan haddii aad u baahan tahay inaad wax ku barato dalalka Turkiga iyo dalalka Malaysia nagala soco social media waxaana ku leenahay ku soo dhawaaw qoyska askuni.com